السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالي كسولو على القناة كأنا فلنا هدي أنا وعصب سبسكرايب من نودي هدا هورنا اللي جوفتنا لايك شير كومنتيga waa inoo dhiirigelin. maanta waxaan ka hadli doonaa fast markii qofta hooyada isku aragto inay uur leedahay maxaa la gudboon. inta badan waynu aragnay hooyooyinka haday is ogaadaan inay uur leeyihiin inta badan waxay iska joogaan gurigooda ilaa ay ilaa ay ka soo weynaanayaan ama maxay ahaatood si ka noqonayaan ay ka dareemayaan inay uur leeyihiin oo kaleeto. marka waxaa jiro waxyaabo fara badan oo kula soo gudboonaan karo haddii aad tahay hooyo leh uur bilow ah siiba bilaha u horeeya. sidoo kale waxaa jiri kara caqabado kusoo wajihi kara ku imaan kara xaalad khatarana ku gelin kara. fast waxaa ka mid ah caqabadahaasi waxaa jiro waxa la yiraahdo ectopic pregnancy oo ah inuu ilmaha ku abuurmo meel qaldan. way dhacdaa wuxuu ku abuurmi karaa meel banaanka ka ah minka, wuxuu ku abuurmi karaa fallopian tubeska ama tubooyinka ugxanta qaada. marka waxaa jira si hadda meeshaan uga jeedno waa meel gudahan waa normal hadduu ku dhago cunuga, halkaa korona waa ectopic pregnancy oo halis ayuu hooyada gelin karaa, heer ay qalin gasho ayuu hooyada ku sababi karaa. marka waxaa wanaagsan inta maxay ahayd uurku cusub yahay oo bisha kowda haddaad dareento ama bisha labaad intaan weli si fiican u abuurmin, hooyada waxaa la gudboon inay computer isa saarto soo ogaato ilmaha meesha uu ku jiro inay yahay meel sax ah oo yahay meeshii ilaah ugu talagalay iyo inay tahay maxay ahayd meel qaldan inuu ku abuurmay. ma wanaagsan mar walba inaad iska fadhiso gurigaada. sidoo kale waxaa jira kaniiniyaal la qaato sida folic acid oo kaleeto waxyaabo fara badan ayuu maxay ahayd ka saacidayaa folic acid-ka. ma ahan gurigaada inaad iska fadhiso haddii aad tahayba qof uu cusub yahay uurkeeda. computerkaas waxaa ku ogaan kartaa markii lagu saaro bisha kooda ilaa bisha labaad inuu meel saxan ku abuuran yahay iyo inuu ectopic pregnancy hadduu ectopic pregnancy dhaqaatiirta ayaga ayaaba kugula talinayo in qalin lagaaga soo saaro. ma ku kori karo halkaa cunuga waayo tubada ayaa qarxaysa ilaahayna uguma talagelin. marka halkan uga jeedaan waa normal, kan xagga jira kan xaggan soo jiran waa ectopic meesha ku abuuran yahay u jeedaa. marka wax walbo alla ayaa awoodo. wayna jirtaa hooyooyin xaaladahaas la soo gudboonaatay cunuga mar hadduu meesha ku weynaadanay dhaawacyo fara badan ayaa ka soo gaari kara tubooyinka. marka fast haddaa isku aragto inaa uur qaaday isa saar computer gurigaada ha iska fadhinin ilaa 4-5 dad iska fadhinaa bilood waa arka aniga kabacdi iska aadayo. laakiin waxaa wanaagsan inaa computer isa saarto si aad u soo ogaato ilmahaada meesha uu ku abuuran yahay. assalaamu calaykum.